ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta safar shaqo ku tagay degmada Balcad si uu ugu kuurgalo xaaladda amniga nololeed ee bulshada Balcad iyo halka ay marayaan mashaariicda horumarineed ee ka socda halkaasi. bulshada Balcad oo ah dad u heelan ilaalinta nabadda, dowladnimada iyo horumarinta deegaankooda ayaa ra'iisul wasaaraha si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Balcad isagoo ka dhageystay mas'uuliyiinta deegaanka, waxgaradka iyo qaybaha bulshada warbixino ku saabsan xaaladooda. waxayna la wadaageen baahiyahooda nololeed ee ka jira deegaanka, qorshayaasha horumarineed ee ka socda deegaanka iyo muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo isku xirnaanta dowladda iyo shacabka. mashaariicda horumarineed ee ka socota Hirshabelle waxaa ka mid ah dhismaha wadada muhiimka ah ee isku xirta Muqdisho iyo Balcad. ra'iisul wasaaraha ayaa dul istaagay qaabka u socoto dhismaha wadadaasi oo meel wanaagsan maraysa, halka warbixino ka dhageystay injineerada iyo howlwadeennada ka socda dalka Turkiga ee gacanta ku haya, taasoo rajo gelinaysa koboca dhaqaalaha qaybna ka qaadanaysa horumarka dalka. wasiirka amniga, wasiiru dowlaha wasaaradda dhalinyarada iyo xildhibaan Cabduqaadir Carabow ayaa munaasabad kooban oo ka dhacday degmada Balcad ka jeediyay hadallo kooban. waxaan uga mahad celinaa dowladda federaalka Soomaaliya oo runtii gacan ka geysatay in la suurtageliyo mashruucan aadka u ballaaran ee wadada ka soo baxda lagu dhameystiray wadadii Xamar Jowhar, haddana lagu dhisayo waxaan dhihi lahaa Xamar Afgooye, haddana lagu dhisayo Xamar Jowhar. waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo hay'adaha amniga oo runtii gacan ballaaran ka geystay inay suurto gasho dhismaha wadadaas oo runtii naf badan dad badan ay nooga dhintay, dad badan ay nooga dhaawacmeen guud ahaan mashruucu intuu socday. wasaare dhammaan inta halkan joogta waxaan u sheegaa wadadan dhankan waxaan jeclaan lahaa deegaanada Hirshabelle in horumarinta looga soo jeestay dhinaca maxaa yeelay waxaa jooga dad u dhisan nabadda iyo inay ka shaqaystaan horumarkaas socda ee gacan ka qaataan. waa ogtiin wadada intay hadda socoto iyo khasaaraha intuu yahay. waxaa loo sheegay hal qof oo dhibashaha keliya, ilaahay ha naxariisto. waa wadooyinka kale halkii maraya waa la waayay. marka dhulkan dad nabadeeda deganay horumarka dhankan aada loogu soo bixiyay inta hadda waqtiga ay ka hartay ee loo joogto. reer Balcad waa dad xabaariyiin ah, waa dad aan oran karo ilbaxnimada Soomaaliya. degmadan maadaama ay tahay degmo aada qadiimi u ah oo laga wada dharaysan yahay, reer Balcad maanta farxad gooni ay tahay. baahida ugu muhiimsan ee bulshada Balcad ay sida degdega ugu baahan yihiin ayay ku sheegeen helista saldhigga booliiska. ra'iisul wasaare Rooble ayaana faray taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan loo keeno degmada ciidamo booliis ah lana dayactiro saldhigga degmada booliiska waxaan farayaa taliyaha ciidanka booliiska Xasan Xijaar Sareeyagaas in uu dayactir ku sameeyo saldhigga booliiska ciidamada lagu soo kordhiyo ee degmada Balcad. wixii qarash ahna diyaar ayaan u ahay sabtiga wixii ka dambeeyo. insha Allah. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa ra'iisul wasaare Rooble uga mahad celiyay booqashadiisa degmada Balcad iyo sida ay uga go'an tahay horumarinta deegaanada Hirshabelle. waa dad tacbataa runtii beerooda sanad waliba markay tacbaan waxaa la tago fatahaado dib ay u tacbaan, haddana xilliga kale gooso tagaan waxaa ku yimaada haddana daad kaleentood. daadkaasu tuulooyinkii u baabi'inaa, badarkii u baabi'inaa, wadooyinkii u baabi'inaya. hadda Balcadaad joogtaa, Jowhar Balcad intuu dhaxaysana fatahaada goyso uma gudbi karno, waa culays intiisa la eg. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo la hadlay bulshada Balcad ayaa xusay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay horumarinta deegaanka isla markaana lacaga wax looga qabanayo fatahaadaha webiga Shabeelle ay u hayso wasaaradda maaliyaddu. waxaan kaloo rabaa inaan idin ballan qaado sida aan ku ballanay madaxweyne Cali Guudlaawe iyo wasiirkiisa in markaan ku noqono magaalada Muqdisho aan la fadhiisano wasiirka maaliyadda oo mashaariicdii fatahaadaha
aan ka wada hadalno lacagna ay u taalo laakiin aan dardargelin hadduu alle subxaana wa tacaala idmo. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble uu weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa xariga ka jiray dugsiga beeraha oo dhawaan laga hirgeliyay degmada Balcad oo muhiimad gaar ah u leh magaaladan caanka ku ah wax soo saarka beeraha. ra-iisul wasaare Rooble ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay dugsiga beeraha isagoo warbixino ka dhageystay maamulka iskuulka. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa intuu ku sugnaa degmada Balcad waxa uu booqday cisbitaalka guud ee degmada. dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka degmada Balcad ayaa uga mahad celiyay odayaashii iyo guddigii isku xilqaamay badbaadinta warshadii dharka ee Balcad ayna mudan yihiin bilad sharaf. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.